ogtahay sheekh Shantaay haweenaya soo hadashay iyo haweenaya oyse iyo gabaraa waxay ku tiri waan jecelahay waxaas cilmi maaha wax nin weyn oo culumaa la weydiiyana ma aha waxaad adigu u aragto inay been yihiin sidii aniga ka xanaaqday in aad diinta muslimka iga saarto nin la yiraahdo Tuxu Munassar iyo yare Dirisla Abdi iyo Tuxu iyo Jamaica markii la tartamiyaa roon وحرون أفرت صهرتي توحوا وحقيدة وآمنسية ما بجران توحوا وطن كان إن الدنيا ذن إلهي لله معمول آمنسية سؤال هو استقرار تبوكته شانتايو شيطان شانتايو waxaad u mooday ama aad ii mooday gabdhihii aad ridinaysay oo dalka iyo sidoo kale dibadda ku sugnaa ee hadba mar aad waxa weeye erganaysay runtii waxaan kuu sheegayaa dhaqdhaqaaqaaga iyo meesha aad joogto iyo saacad walba cidda aad la hadasho iyo mar walba mobilkaaga oo soo dhacayo xogaha hoose iyo wax walba cid walba aad la wadaagto runtii waa la soconaa aniga ha ii moodin ilmihii yararka ahayo hadba markaad ridiso ama waxa weeye aad cayso hore ka soo qeylinaya anigu hadda waxyaabaha halkan u soo fadhiistay waxay tahay inaan kuu jawaabo aan ku sheego inaan kaaga harin wallahi billahi talaahi inaan kaaga harin aan ku yiri inaan kaaga harin ereyga aad igu tiri oo aad igu sheegtay in diinta muslimka aan banaanka ka aalo wallahi waxaad baratay in gabdho yar yar aad inta sixirto waxa weeye dhibaatayso oo 24 saac isbitaalada Muqdisho dad aad sixirtay oo aad dhibaataysay waxa weeye ku jooga waxa weeye yaalana iraahday kaaga harimayo 30 sano jir gobolada dhexe ku qangaaray kuna soo barbaaray kuna dhashay baana runtii jiljilaacna liguma soo korin tuugsina liguma soo korin waxa ugu balana Shantayo shaydaan Shantayo ereyga aad i tiri inaan kaaga harin shaydaan Shantaay inay Soomaalidu u taqaano inuu yahay markaasi Sheekh Shantaay aniguna aan ula baxay inuu yahay markaasi shaydaan Shantaay ayaa magaalada Muqdisho dad anigu aan kamid ahay diinta muslimka ka saaray subhanallah hadii aan u guda galo aniga midayda waxaan rabaa inaan kula wadaago xogo ku saabsan ninkan shaydaan Shantaay aan ula baxay sixroolaha ah ee magaalada Muqdisho ku sugan dadkii muslimka ahaa ee Soomaalida ahaa diinta muslimka ka saaray qaarkoodna dhiigooda baneeyay oo sheegay in hadii la dilo ay banaan tahay walaalkayga Soomaaliyeedow muuqaalkan hadii uu soo gaaro marka hore waxaan si xushmad iyo naxariis ku dheehan tahay inaad muuqaalkan inoogu leegareyso maxaad ka aaminsan tahay ninkan ay Soomaalidu u taqaano Shantaay aniguna aan ula baxay shaydaan Shantaay muuqaalkan noo sheergare oo la wadaag asxaabtaada gaarsii shaydaan Shantaay si markaasi uu xogtiisa oo dhameystiran u ogaado iyo waxyaabaha dadka reer Galmudug ay ka aaminsan yihiin maadaama uu yahay nin markaasi isagu xiskiisa aan dhameystirnayn sida dadka qaarkiis ay markaasi og yihiin anigu magacaygu waxa la yiraahdaa Maxamed Cabdiweli Tooxow aniga iyo koox kale oo saaxiibaday ah ayaa habeen dhaweyd waxa uu markaasi ninkaasu uu ku sheegay in diinta muslimka aanu banaanka ka naalo haddii aan aniga tayada u guda galo waxa uu markaasi isagu sheegay in iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin aanan macnaheeda iyo fasiraadeeda aqoonin maadaama uu isagu markaasi ugu tilmaamay in ilaahay subxaanahu wa tacaala oo in abuuray koonkan ama arladan wax allaala waxa ku sugan makhluuq ah markaas dul heehaabayana ilaahay awoodiisa iyo amarkiisa ay ku socdaan inaan la caabudo oday 80 sano jir ah subxaanallah bal maxaa ii keenay oday 80 sano jir ah inaan la caabudo ilaahay nafta ii geliyay sidaan ii ekeysiyay suuradeyda dhameystiray caafimaadkayga taamka ka yeelay maadaama bil Ramadaan lagu jiro waxaan ummadda Soomaaliyeed si xushmad leh kaga codsanayaa in ninkaas ay faatixada u maraan si ilaahay uu dadka iyo dalka iyo dadka iyo diinta uga qabto abgaal Cusmaan waxaan idin sheegayaa ninkaas inaad qabsataan inagu dad walwaalan waa noo joogan Galmudugayna waxa weeye ku sugan yihiin afka matabaan ilaa afka gaalkacyo oo markaas aynu degno dad walwaalan waa laga helaa miidiyahana ma horkeeno in la kala xishooda ayaa muhiimad u tahay waxaan idin sheegaynaa in ninkaas aad ka qabsataan dadka Soomaaliyeed oo maalin walba miidiyaha inta soo istaaga dadkii ridinaya diinta muslimkana ka saaraya Shantayo shaydaan Shantayo waxaad u mooday ama aad ii mooday gabdhihii aad ridinaysay oo dalka iyo sidoo kale dibadda ku sugnaa ee hadba mar aad waxa weeye erganaysay runtii waxaan kuu sheegayaa dhaqdhaqaaqaaga iyo meesha aad joogto iyo saacad walba cidda aad la hadasho iyo mar walba mobilkaaga oo soo dhacayo xogaha hoose iyo wax walba cid walba aad la wadaagto runtii waa la soconaa
aniga ha ii moodin ilmihii yararka ahaayo hadba markaad ridiso ama waxa weeye aad cayso hore ka soo qaylinaya anugu hadda waxyaabaha halkan usoo fadhiista waxay tahay inaan kuu jawaabo aan kuu sheego inaana kaaga harin wallaahi bilaahi tallaahi inaana kaaga harin aan ku yiri inaana kaaga harin ereyga aad tiri oo aad igu sheegtay in diinta muslimka aan banaanka ka aalo diinta muslimka waa laygu dhalay waana ku jiraa ilaa iyo haddana waxa weeye iyadaan ku dhaqmaa alxamdulillahi rabbil caalamiin oo nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam dadkii uu soo gaarsiiyey ee maanta waxa weeye ku naaloonaya ayaan ka mid ahay marka carabiga bartay waan aqaanaa sida aan ula macaamilo habeen walbana waxa weeye dadka aad waxa weeye la joogto iyo meesha aad waxa weeye ku caweyso iyo fagaarayaasha aad